gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u cidi injineer Faysal Cali Waraabe oo qaybo kamid ah warbaahinta kula hadlay xarunta xisbiga ayaa waxa uu si adag u difaacay hadalkii ka soo yeedhay boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow oo ku sugan magaalada Muqdisho. boqorku uu isxilqaaday shakhsiyan iyo isxilqaaday wuxuu dabcay inuu Soomaaliya si ay doorashada dadban u gacan uga geysto oo si ay doorasho ugu dhici lahayd ay ku wada kalsoon yihiin uu isxilqaamay dadkii ka yimi laascaanood ee si degdeg ah loo tarxiilayna xaal buu ka bixiyey si fiicanna waa loo soo dhaweeyey laakiin hadda waxaan maqlayaa ninkii u soo gurmaday ee isxilqaamay ee ka soo xilqaamay magaalada Imaaraadka oo laga yaabo in dad badan reer Soomaaliland aanay arrintaas aanay ku waafaqsaneen naftiisii u bareeray inaan waxaan siyaasadda Soomaaliland ahayn uu ka soo jeedo uu ku dhaqaaqay oo shakhsiyan initiative keenay inuu ku soo gurmaday ay maanta aflagaadeynayaan waxaan u sheegaynaa haddaba haddaan leediin xaal haga bixiyo ina goodane idiga waxaad ila jooga kuwii gamcaha dhiiga ku lahaa aad jooga war xasan sheekh soo maaha ninkii caliim samatar oo BBC ka sheegay anaa amray duqeyska Soomaaliland ninkii intuu ka soo qaaday Mareykan askarin u sameeyay soo maaha xamarka ku aasi war farmaanshahan xuma idala socday dusha iska haysta soo maaha ninkii dadka nolosha ku gubiye tuke la tasawirnaa soo maaha maxaa inta uga hadli weydeen inaan dhiig lahayn nin bayda ka dhashay waxa ay doon ninka waa ka dhintay waa maqli jirteen guuloode wuxuu ku hadli jiray ka imaka gacan yara waa la taliyaha ee ortoble ee aan jiray doobiilaha afweyn laakiin ka dhigay wasiirka hawlaha guud mar ilaa in la xasuuqay ku fiican tuu idila jooga dani waxa shahaadada siinaya Morgan ninkii uu ka xishooday ninka Mareykan inuu salaamo ee loo bixiyay the butcher of Hargeysa waxa dani warqad siinaya واديك حواشي محمد سياد بري كدو الأوي يقول في حسني نكي بريد حسوقي الشعب جدا جنا عدالي مريحان وكسر كار قديئة ولي ما هرشان هويه وهويه كو هذا يعني موس بقربوده هنشبيه wili ma aragteen nin hawiyo yiri war nimankaasi haysana waa dadkii Soomaaliland isaaq xasuuqay ma ku jira ma jiro warba inaan aqli lahayn warba ninka idin soo gurmaday idinkoo 4 sano Maxamed Siyaad Barre dawladiisa inay yarid ku dhax abuuray guuloodayaashii uu bixiyay xoogaga wadaniinta uu bixiyay guuloodayaashii xitaa wax kala daayo warmaninka idin soo gurmadeen maanta fiqo leedahay ee aborjaas bixiyo maxay aborjaas u bixin waayeen kuwan inta ila ag jooga ee xasuuqi faraadiga kule ee adduunka dhan yaqaanay war criminals yihiin waxaan leeyahay isku xishooda magaaladiina waa la isku xukumayaa saa inta loo galay Cabdirashakuur saa loo laayay macaa'inan meel lagu asaan la garanay qaybdii xaaskiisa mas'uulka lagu furay dhiigayaasha xinayaha anaga nagu hadashaan Buurmadow aad ku qabanaysaan dhulkiina magaaladiina la isku xukumo ku qabsado gudoomiyaha Faysal Cali Waraabe ayaa shirkiisan jaraa'id waxa uu ku soo hadal qaaday safarkii dhawaan uu Soomaaliland ku yimi madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar waxa laga bixiyay faalooyin badan baa laga bixiyay waxa weeye anaga reer Soomaaliland dawnahay jumhuriyadda Soomaaliland siyaasadda dibadda waxa ku fadhidaa
jaar wanaagsan baa ku faraxsanaa inaan wadamada jaarka ah si nabadgelyo ah oo walaalnimo ah inaan kula noolaano inaan wadana gudihiisa faragelin ayaa tahay siyaasadeedu annaga Ethiopia xiriir fiican baan leenahay deris baan nahay 450 kilomitir baan wada waagnaa dekedeedu waxay u furan tahay Ethiopia u furan tahay iyo wixii ka sheeyaba wanaga hadda balaadhinano arrimaha gudahooda ma dhexgelin laakiin waxaan jeclahay inay nabadgelyo ku noolaadaan Faysal Cali Waraabe gabagabadii ayaa waxa uu ka hadlay safar dhawaan labada xisbi mucaarid ay ku tageen magaalada Nairobi kuwaasi oo la soo kulmay wadamada Somaliland ka taageera dhinaca dhaqaalaha ee doorashooyinka wuxuu nagu soo dhamaaday guul aynu soo dhamaaday alxamdulillah rabbil caalamiin safiirada aragnay iyo diblomaasiyiinta Somaliland aad iyo aad bay soo dhaweeyeen doorashadoodii hore tan soo socotana iyagana aad bay noogu booriyeen iyaduna ay saas oo kale u dhacdo insha Allah taala si nabadgelyo Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa